بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalyaal meel kastoo aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan muuqaalkan oo aan rabo inaan kaga hadlo arrin digniin ah iyo talo aan rabo inaan siiyo dadka muslimiinta ah ee walaalada ah nagu xidhan insha allahu tacaala. walaalayaal saa ogsoontihiin cudurka coronavirus caalamka meel walba iminka wuu ku faafay, waa ogtihiin macluumaadkeeda waa ka dharagsantihiin. kama warramayo siduu ku faafay, kama warramayo calaamadaha iyo symptomska lagu yaqaano. waxaan rabaa arrin digniina inaan idin sheego. arrintaa digniinta waxa weeye waxaa jira marka imtixaanaadkan oo kale ay yimaadaan ama cudurrada iyo abaaraha iyo waxyaala saas oo kale marka dhacaan oo dunida ay ka dhacaan ama caalamka islaamka si gaara waxaa jira dad ka faa'iidaysta. arrintani waa imtixaan ka mid ah imtixaanaadka ilaahay uu bani aadamka uu ka qaadayo. marka qolana imtixaanka way ku baadiyoobi, kuwo kalena way ku hanuuni. yudilu allahu man yashaa wa yahdi man yashaa. isaga ilaahay ciduu doonana baadiyaysiyo ciduu doonana hanuuniyo subxaanahu wa tacaala. marka imtixaan markuu ilaahay uu keeno waxa weye dadku ku kala shaandheeya, dadku ku kala saara. marka waxa weye cudurkan markii uu dhacay iyada oo markaa waxa weye buunbuunin badan laga sameeyey warbaahinta dunida oo dhan oo cabsanaysa waxa weye subxaan allah la ilaaha illa allah oo arrimahaas oo dhan ay jiraan. waxaa sidoo kale jiray dad markaa ka faa'iidaystay. dadkaasi ama mulxidiin bay yihiin oo ilaahay jiritaankiisaba ma yaqaanaan subxaan allah, ama ilxaadkay u dhow yihiin iyo zandaqadiiyo wixii la midka xasbuna allah wa nicma alwakiil oo jees bay bilaabeen inay ku jeesjeesaan caalamka islaamka ama dad muslimiina oo waasiibay markaa waxa weye cudurkaasi ama dowlado muslimiina oo uu ku dhacay. saa ogsoontihiin dalka sacuudiga wuxuu hakad u geliyey cimradii. waxaa kaloo la sheegay in kacbadii masaajidka ilaahay ee xaramka in hakad la geliyey dawaafkii ama isu ururkii dadkii maaragtay isu ururayay iyadoo markaa laga cabsi qabo faafitaanka uu faafayo cudurkan coronaviruska loo yaqaan. meelo badan oo caalamka islaamka ka mid a xataa waxaa la joojiyey jamaacaadkii waxaway salaadii jumca lagu tukanayey. yurub sidoo kale masaajidada in laysugu yimaado ama salaad jamaaca la tukada ama jamaacaadkii ayaa markaa la joojiyey. in meelaha dadku ku kulmaan, suuqyada iyo meelaha sinimooyinka, meelaha cayaaraha lagu daawado, waxaasoo dhan waxa weeyaan waa la joojiyey. waxa la dhaha xajru sixi, in markaa waxa weye caafimaadka aadamaha la fiiriyo intii la hakin karayo ama la joojin karayo cudurkan na la joojiyo. dadka markaa waxa weye faafinayana markaa waxa weye la xakameeyo ayay dowlado fara badan markaa go-aansadeen. markaa waxaa soo baxay dad ka faa'iidaysanaya markaa arrinta. waxay dhaheen dadkaa mulxidiinta ah nacuudu billah ama aan dhahayno mulxidnimay u dhow yihiinba. sawdkii xaramku uu ahaa xaraman aaminan, xaran aamina. sawdkii magaalada maka nebigu uu sheegay inaan daacuunku aanu gelin, sidee buu coronavirus u galay? marka ujeedadoodu waxa weeyaan inay saxiixulbukhaariga iyo axaadiista nebiga ay duraan, diinta islaamkana markaa ay kasoo qaadaan mid markaa burtay oo meeshaba ka baxday mar haddii cudurka coronavirus uu galay markaa waxa weeyaan sacuudiga ama gaar ahaan maka ama madiina iyagu siday hadalka u dhigayaan. jawaabta waxa weye qof kastaa waa iska fahmaya, waa garanaya. ka ugu caqliga yar muslimiintu wuu garanay. way xadiiska saxiixulbukhaariga ku yaala nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam magaalada madiina cudurka daacuunka iyo dajaalku ma gelayo. daacuunka iyo dajaalku ma gelayo. riwaayo kale waxay tilmaamaysaa iyo maka iyo magaalada maka. marka daacuun iyo coronavirus ma isku midba? sida taariikhda la og yahayna cudurka daacuunku muu gelin madiina iyo maka toona. ibnu xajar baa sidaa leh raximahu llahu raxmatan waasica, ilaah u naxariistay imaamkaa weyne. markaa waxa weye cudurkii daacuunka ma gelaya maka iyo madiina, waa xadiis saxiixa. laakiin cudurada kale way ka dhaceen. saxaabada oo nool bay dhaceen. cumar oo taaganaya magaalada madiina cudurro kale ay ka dhaceen. marka coronavirusku wuu geli karaa magaalada maka ama madiina wuu geli karaa. arrinta uu rasuulku noo sheegay waa xadiiska saxiixa ee bukhaari ku yaalla waa daacuunka. marka arrintaas waxa weeyaan waxaan rabay inaan idin kala caddeeyo daacuunka iyo coronavirus inaana isku mid ahayn. idinkuna waa garanayseen. waxaa kaloo digniintu ay ku socotaa inaad iska ka digtoonaataan dadka qaabka noocaasa hadallada u dhigaya.
waxa kaloo jira dad markaa waxa weeyaan cudurkan markuu dhacay iyaguna sheegtay inaan waxan ciqaab ilaahay xaggiisa ka yimi aan ahayn oo ilaahay dadka ma ciqaabo oo ilaahay dadka kama aargoosto xasbuna allahu wa nicma alwakiil xasbuna allahu wa nicma alwakiil ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa kasta maqaadirtiisa iyo qadarkiisa ku dhacdaa kitaabka lawxul maxfuudkay ugu qoran tahay subxaanahu wa tacaala cidda uu ku dhacaysa cidda ay asiibaysa cidda ay baalmaraysa intaba subxaan allah ilaahay way u qorantay subxaanahu wa tacaala ilaahayna ogolaanshihiisa iyo biidnihi bay ku dhacaysa xataa haddii bani aadam uu faafiye waxan oo ay sida dadka qaar ay leeyihin waxan waa biologically baa loo dagaalamaya iyo dowlado waaweyn baa ka dambeeya oo bani aadam ayaa markii hore sababtooda lahaay oo waxan keenay haddana ilaahay maqaadirtan cidda uu ku dhaxayo iyo cidda uu asiibayo ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa ayay ugu qoran tahay marka dadka sidaa u hadlayana fadlan walaalayaal ka digtoonaada waayo waxa weeyaan halis ayaaba markaa waxa weeyaan idinka gelinayaan caqiidadiinii oo caqiidadii muslimka ahayd ee saafiga ahayd ee ahayd khayrka iyo sharka labadaba ilaahay bay xaggiisa ka yimaadaan labadaba ilaahay baa u qadara aadamaha subxaan allah oo qadar ilaahay bay waxan oo dhan ay ku socdaan marka aynu ka nimaadno digniinta tala ayaan u imanay dadkii waxa way wada cabsanayaan baqdin ayay ku wada jiraan xanuunkii baa laga wada baqanaya waxay leeyihiin maxaana lagula talinayaa haddii maxaan samaynaa waxaan kula talinayaa walaal laba arrimood oo keliya labada arrimood waxa weeye diinta islaamku waxay noo sheegtay in fanni kastaba cid looga dambeeyo oo dadku ay takhasusaad ay kala leeyihiin marka talada koowaad waxa weeye waxaad ku dhaqmaysaan wixii dhakhaatiirta ku takhasustay arrintan ee dadka wanaagsan ee ka talinaya caafimaadka iyo sixada aadamaha ka talinaya inaynu u daba fadhiisanno wixii ay nagula taliyaan hadday nadaafadda tahay haddii qaabkii looga hortogaya ay tahay inaynu u daba fadhiisanno waayo ilaahay qur-aankiisa wuxuu noogu sheegay subxaanahu wa tacaala fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun war dadka aqoonta le weydiiya marka dadka takhasuska u leh ee cilmigii caafimaadka bartay ama dhakhtarnimada bartay ama hygienki iyo markaa qaabka nadaafadda iyo wixii lamida bartay ayaynu uga dambaynaynaa arrintaa taladoodana waynu qaadanaynaa ixtiraam iyo qadarina waan u haynaa bulshada hawsha ay u hayaan weliba khaasatan markuu dhakhtarku yahay dhakhtar islaama oo muslima waxa weeyaan waanu ku qadarinaynaa waanan ku qiimeynaynaa waanan u daba fadhiisanaynaa wixii uu noo sheego ee markaa caafimaadka iyo sixada aadamaha markaa ka mida taas waa talada koowaad talada labaad waxay tahay walaalayaal waa inaad ilaahay isku xidhaa subxaanahu wa tacaala arrintan ilaahay xikmad ayuu ka leeyay wax bilaa xikmada oo dunidan ka dhacaya ma jiraan walaalayaal inaan ilaahay u dhowaano weeyaan inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka magan galno weeyaan inaan ilaahay barino weeyaan inaan ilaahay gacmaha hoorsanno weeyaan ilaahay isagaa cudurkan keenay oo inoo qadaray isagaana iminkaynaga qaadaya towba inaan la nimaadno ilaahay u soo noqonno xaggiisa u soo cararno ilaahay ku xidhnaano salaadiisa badsanno samirka la nimaadno qadarka ilaahay aanu rumayno iimaankeennu uu ziyaado ayaa loo baahan yahay oo aynu ilaahay ku xidhanno subxaanahu wa tacaala oo dadka lagu xidho quluubtooda ilaahay lagu xidho subxaanahu wa tacaala ilaaha jaliilka ah ilaaha cadiimka ah ilaaha kabiirka ah subxaanahu wa tacaala ee cadamada iyo kibriyaagaba iskale ee jabaruudka iskale subxaanahu wa tacaala ee cidduu doono markaa waxaweye rabbigaa weyn ee cidduu doono markaa ku sababaya cidduu doono ka aargoosanaya cidduu doono cafinaya wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfuu can kathiir musiibo kastoo timaada waxay ku imanaysaa waxaynu kasbannay aadamuhu wuxuu kasbaday dembiye la galay sayi-aad iyo macaasi la sameeyey ayay ku imanaysaa ilaahayna wuxuu uhi wayacfuu can kathiir weliba qaar badan buu ilaahay dhaafaa oo u cafiya marka uu ilaahay dhirbaaxo yar oo uu ku dhufto aadamaha ama xanuun yar uu keeno ama abaar uu keeno ama dhibaato uu keeno rabbulciisa subxaanahu wa tacaala xikmadda ku jirtaa waxa weeye in dadka intay muslimiinta ah inaad ilaahay usoo noqotaan kuwiina gaalada ahowna inaad ilaahay qudradiisa iyo awooddiisa aragtaan oo aad ku qaadataan oad ku cibro qaadataan dad badan baana ku islaamaya arrintaa kuwo badanna way ku baadiyoobayaan
kuwa aan islaamba warba u haynin ayaa kusoo gelaya diin alislaam si ay ogsoontihiin. xataa waxa weeyaan madaxweynihii maraykanka ayaa twitterkiisa wuxuu ku qoraya waa inaynu barino ilaahay, waa inaynu salaad tukano buu ku qoraya twitterkiisa. bal hadda u fiirso cudurkaa yar heerka uu gaadhay, suma ujeedid in madaxweynihii dalkii super powerku isku sheegayay marka waxa weeyaan ay ogsoonaadeen awoodda ilaahay iyo qudradiisu intay laagtay. cudur yar ama virus yar oo waxa weeyaan isha aadamuhu aanay qabanaynin, oo haddana aadamihii ay sidaa uga baqanayaan oo sidaas ay uga cabsanayaan. war rabbigii keenay ayuunbaa inaga qaadi kara, rabbigii keenay unbaa ayaa marka awooddaana leh inuu inaga joojiyo, inuu inaga ilaaliyo. ilaahay ha la baryo, sujuudda ha lagu baryo, ilaahay subxaana watacaala loo soo noqdo. dadka muslimiinta waxaa kale oo tala ahaan loo soo jeedinaya inay qunuudaan salaada marka ay tukanayaan, inay qunuud sameeyaan oo ay ilaahay subxaana watacaala ka magan galaan cudurka inuu beledkooda uu keeno. haddii inta muslimiinta iyo inta bashariyadii aadamaha uu ka dhacayna inuu ilaahay ummadaba uu ka dulqaado cudurkan, ilaahay ay baryaan, qalbigoodana ilaahay ku xidhaan. taladu waa intaa walaalayaal, labada arrimood ee taladaabaan idin siiyey. in markaa waxa weye dhakhaatiirta aynu daba fadhiisanayno oo markaa ciddi khabiirka u ah fas'al bihi khabiira, ciddi khabiirka u ah fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun. inagu aqoon haddaynaanu lahayn caafimaadka in kuwa aqoontole inaynu warsanno oon weydiino, iyo inaynu ku xidhnaano rabbigeen subxaana wa tacaala oo imtixaanka kuwii ku guulaystay ilaahay naga yeelay subxaana wa tacaala. waxaan kusoo gebagabanayaa ducaan kusoo gebagabanayaa, waxaan ilaahay ka baryaya subxaana wa tacaala inaan cudurkaa ilaahay noo keenin. ilaahay waxaan ka baryaa rabbulciisa subxaana wa tacaala, isagaa awoodda iska leh, isagaa maqaadirta wax walba qadaray. ilaahay waxaan weydiisanaa subxaanahu wa tacaala inaanu imtixaankaas iyo markaa waxa weye cudurka noocaasa aanu noo keenin. inta uu ku dhacaya islaamka iyo bashariyadda aadamahana inuu ilaahay ka dulqaado subxaanahu wa tacaala. ilaahay kuwii imtixaanka ku guulaysta allah inaga yeelo, kuwii ku baadiyoobina allah soo hanuuniya subxaanahu wa tacaala. intaasaan kusoo afmeeraya. jazaakum allahu khayran وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.